nima in la qaato waa laga soo shaqeeyay dadaalay soo marteen 60kii sidii dadka isugu duubnaayeen oo isku jeclaayeen oo midnimada ugu shaqeynayeen inaan maanta uga shaqeyno waa inaynu dhaqaaqnaa dhaxdu aynu xiranaa gobonimadu dhalinaa rabbi baanu leenahay rag miyaa inoo maalintan liibaanay 60kan calanka qaadanay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xalay waxay martigelisay munaasabada 26 Juun munaasabadan oo ka qabsoontay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27 ee guutada shanaada iyadoo lagu muujinayay muhiimadda qiimaha ay taariikhiga ay u leedahay shacabka Soomaaliyeed saraakiil ka socotay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marti sharaf kala duwan ayaana ka qayb galay munaasabada 26 Juun oo xalay si weyn looga xusay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabadan oo ahayd mid lagu muujinayay halgankii gobonimo doonka iyo sidoo kale doorka ay ciidamada qalabka sida ay kaga jiraan difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada shacabka Soomaaliyeed taliyaha guutada shanaad ayaa xalay magaalada beledweyne ku soo bandhigay dowlatus cajiib ah kadib cutubyo ka tirsan ciidamada markii halkaasi ay ku soo bandhigeen la wada socono maanta waxa waaye ama caaba waxaan halkaan u joognaa inaan xusno maalinta xurriyadda ama ay qaateen xurnimada gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo ku aastaysan 26 Juun 1960 sidoo kale maalmahan hadda lagu jiro waa maalmihii xurriyadda 5 maalin kadib sidaan la socono waa markii ay maxaa la lahaa 1 Luulyo ay qaateen gobolada Koonfureed ee 1960 xurnimada iyo maalinkii la midoobay labada gobol ay midoobeen dabcan calanka Soomaaliya wuxuu u taagan yahay ama xidigta shanta ee dhaxda uga taalo shanta geesood leh waxay u taagan tahay ama uu taagan yahay midnimada iyo wadajirka iyo himilada Soomaaliyeed dabcan xurnimo in la qaato waa laga soo shaqeeyay dadaalay soo martay dad badan maxaa la dhahaa nafurnimo u sameeyay Soomaaliya in maxaa la dhahaa xurnimo ay qaadato ee iska saaraan gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga ee gobolada waqooyi iyo gobolada maxaa la dhahaa Koonfureed joogay waxay ku timid nafurnimo iska warqab isdhageysi is-ixtiraam isjacayl ee ku imaatay 60kii wixii ka dambeeyeen neecaw badan iyo maxaa la dhahaa himilo badan iyo soo jiritaan badan iyo horumar badan la sameeyay nabad ay dadku ku wada joogeen dabcan wixii ka dambeeyay burburkii 90kii burbura yimid dagaalo sokeeya dhacay waa la iska qabsaday hadda maanta waaqic aan ku jirnane waxaan moodaa inaan soo kabsanayno oo maxaa la dhahaa hididiiladeedii aysan xumeyn saas darteed waxaan laga rabaa inaan is xasuusino wixii ay soo mareen dadkii annaga naga horeeyay oo maxaa la dhahaa waalidiintiina ahaa oo soo halgamay markii loo fiiriyo waaqica maanta aan ku jirno ee dadkaas waxay ay keeneen meesha ay soo gaarsiiyeen difference badan oo dhaxeeyo marka aragto waxyaabaha la isku haayo iyo meesha aan maanta taaganna waxaan laga rabaa inaan maxaa la dhahaa 60kii sidii dadka isugu duubnaayeen oo isku jeclaayeen oo midnimada ugu shaqeynayeen inaan maanta uga shaqeyno maanta ninka nool qof walba meesha uu joogo inuu ka qabto oo maxaa la dhahaa inta uu gaarsiin karo inuu gaarsiiyo anaga reer Hiiraan aan nahay beledweyne aan joognaa inteenan caawa qof walbana mas'uuliyad gaar ay meel kale oo kala duwan la jooga waxaan rabnaa inaan maxaa la dhahaa Soomaaliya inay hor u dhaqaaqdamaane inaan gadaal u celinin Soomaalinimada ka shaqeyno hiddiilaha ka shaqeyno nabad aan ka shaqeyno intaasaan rabnaa waqtiga kooban ama maxaa la yar awgeed qodbada intaas ku soo koobaya waxaan idinkugu hambaleynayaa ama nafteeda iyo Soomaaliya iyo dadka reer Hiiraan iyo dhammaan qof walba magac Soomaaliyeed ama af Soomaaliyeed ku hadlo waxaan ugu hambaleynayaa xurnimadii aan ka qaadanay gumeystaha 26 Juun 1960 iyo 1 Luulyo oo gobolada Koonfureed ay qaateen 1960 iyo markii ay midoobeen labada gobol waxaan u rajaynayaa dhammaan Soomaaliya inay marka la midoobaan calankaas oo maxaa la dhahaa shanta geesood xidigta shanta geesood leh in maxaa la dhahaa sidii ay u sameeyeen dadkii keenay ama soo asteeyay ama qofkii sameeyay maxamed cawaali liibaan ahay Soomaalida ku raacdaba in maxaa la dhahaa aan ka dhabeeno bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyina mawlana muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam saraakiisha saraakiil xigeenka alifleeda dableyda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka soo qayb gashay xalfadan 26 Juun ee 1960kii ee ah maalinkii gobolada waqooyi ee qaateen xurrimo Xuseen aanu taaganahay
26 Juun waa habeenka midowga ummadda Soomaaliyeed waa habeenka Soomaalida oo dhan ay ku midaysan tahay waa habeenka awoodda Soomaalida ay midowday waa habeenka cadowga u ah nuqsaan Soomaalidana u ah farxad iyo hidadiilo fiican u ah waxaan waliba aad ma taqaan ugu faraxsanahay caawa in meesha midnimada iyo dowladnimada meesha ka aasaasamtay gobolka Hiiraan aan caawa ka xusayo xafladda 26 Juun qiimaha badan kala duwan mahada waxbarashada kulli askarta arfleyda dableyda dhamaantiin salaanta salaamka adigu salaam assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh qof walba masabkiisa oo ku fadhiyo ku salaamaya salaanka bacdi 26 Juun maalin qiimo badan xurriyad leh maalmaha kale noogu duwan 1960 maalintii awoowayaashan ay u halgameen xurriyadda lagu guuleystay waxaa leeyahay hambalyo oo soo dhaweynayaa 26 Juun maalin qiimo badan qiimo agteena kule awoowayaashan xurriyadda ay u halgameen maalin aad iyo aad u qiimo badan maalintaas waa maalintan liibaanay 60kan calanka qaadanay luulyo noqotay leergomanimo waxaa soo laaglaagsataaba waxaa libin ku dirirtaaba xareed lugaha dhigatay laamaha caleenta uba doohana raggeenow dhalanteed runmoodow shida nagula taagow calankaan u dhiidhinay shanshada ka dhuuxow dhiiggii walaalkiis shilimaana siistow gabdhihii Soomaaliyeeday waa inaynu dhaqaaqnaa dhaxdu aynu xirannaa gobonimadu dhalinaa rabbi baanu leenahay rag miyaa inoo maqan Ibaan Suubane Daawud idaacadda TV-ga Shabeelle xarunta maamulka ee Lamagala ee magaalada Beledweyne